barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri ayaa 250 arday oo ka qalin jabiyay farsamada gacanta noocyadeeda kala duwan waxa uu shahaadooyin ku guddoonsiiyay hotel Cigaal ee magaalada Burco. dhalinyaradan oo iskugu jiray hablo iyo wiilal ayaa waxa ay ka soo jeedaan xaafadaha ay ku dhaqan yihiin dadka barakacayaasha ah ee magaalada Burco, gaar ahaan xaafadaha Koonsaar, Cali Xuseen iyo Aadan Saleebaan, waxaana ay wax ku baranayeen xarumaha kala duwan ee ay leeyihiin hay'adaha wadaniga ah, gaar ahaan hay'adaha Candlelight, Hafayoko iyo waliba Soifo. saraakiil ku hadlaysay afka hay'adaha Candlelight iyo Soifo iyo sidoo kale Hafayoko ayaa halkaasi hadallo mahadcelin ka soo jeediyay iyo waxyaabihii ay carruurtan bareen. ujeedada laga leeyahay waxa weeye si dadka tababarka la barayay xirfadaha la siinayay ay uga baxaan ku tiirsanaanta ay had iyo jeer ku tiirsan yihiin dadka kale ama hay'adaha kale ama dad kale gacmahooda inay eegaan oo ahayd in xirfadahaas ay u noqdaan dhaxalgal ay kaga faa'iideystaan waqtiga ay sii nool yihiin. hay'adda NRC waxay u qaybisay qalabkii ay ku sii shaqayn lahaayeen oo fududeynayay inay xirfadda ku sii shaqayn karaan. waxaanu ka fahnaa ardayda xirfadaha ay bartaan inay ku sii shaqayn doonaan. كلي برنامجكم مركان ودني أرضي ده واحد لقاركي أبابل يو نرجلي فربضان يدل فربضان باللقاركي وحاني هنرضي أكو كلسون معي حرفة يبرتين يو أقونتي أكهل الماشي نيكو شغل تجانا يمكا كيف هذا السنة مستقبل كودا. gudoomiyaha mashruuca ardayda wax lagu barayay iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka caalamiga ah ee NRC ee gobolka Togdheer Ibrahim ayaguna u mahadceliyay hay'adaha wadaniga, waxaana ay tilmaameen inay sii wadi doonaan dadaalkooda ku wajahan guud ahaanba sida ay kor ugu qaadi lahaayeen xirfadaha noocyadooda kala duwan, maadaama dalkani uu qabo guud ahaanba baahi ballaaran dhinaca farsamada gacanta. barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer iyo sidoo kale gudoomiyaha Aadan Saleebaan oo ku hadlayay afka xaafadaha barakacayaasha ayaa iyaguna halkaasi ku boogaadiyay dhalinyaradan inay ku shaqo tagaan waxyaabaha ay barteen. gudoomiyaha gobolka Togdheer oo gabagabadii abaal shahaadooyinka guddoonsiiyay dhalinyaradan hablaha iyo wiilasha iskugu jira ayaa isaguna geestiisa waxa uu tilmaamay in guud ahaanba waxbaan qoraa waxbaan akhriyaa aan soconayn, hase yeeshee loo baahan yahay in gacanta laga shaqaysiiyo. waxa uu baahan yahay dalkeenu waxbarasho taala aad baa loo tagaa iskuulada waan qoraa waan akhriyaa wax badan way noqon weyn wax badan dadkii yaqaanay may tageen. waxaan filayaa inay loo daadagayo hadda sidii ay u noqon lahaayeen ummadani ummad farsamo la timaada oo gacanteeda wax kula soo baxda. وعبد الستار صبري TV qaranka Somaliland.